qodobaynaya laba kalmadood oo kaliya taaniga waqtiga ilaashanaya ninka wasiirkii wuxuu horta u socdaa isku dir uu doonayo dad dhintay inuu ka been sheego inuu qabyaalad iyo wax imika in hore looga sii socday uu dib u saafaqo laakiin cidi dib ugu noqon mayso mudana madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa wasiirkii aad u warfaafinta aad u magacowday wasiir uu ummadda u noqon kara iyo wacyigelin uu ummadda u siin karo ma jirto laakiin wuxuu saafaqayaa amba uu jeedinayaa oo ummadda dhex gelinaya xumaan beri hore lagu kala bogsaday lagu kala tegay wixii dadkii dhintay ay hore qoreen iyo wax aanay odhanba ayuu ka been sheegay waxaanu kaa codsanaynaa madaxweyne anagu ku dhihi mayno gabdhaha ciidagale ayuu wax ka sheegay dee gaar ahaan baan u cabanaynaa ma odhanayno laakiin waxaan ka hadlaynaa haweenweynaha somalilan oo dhan ayay ku tahay laftar in qaranka somalilan ay ka mid yihiin haweenka ciidagale lagu dhex caayo weliba nin wasiira oo dee dadka u haya xil inuu buuguu qoray 7 sano ka hor maanta lasoo qaato oo wuxuu ku qoray lasoo bandhigo taasi waxay keenaysaa inaanu wasiirku ka fiirsan taariikhda iyo joogitaanku joogi doono ama xil wadanka looga magacaabi doono umuu haysanin laakiin way dhacday taas beddelkeeda madaxweyne waxaanu kaaga sugaynaa sida ugu dhaqsaha badan leh in aad wasiirkaana xilka ka qaado buwaagtana uu soo ururiyo gacantiisana uu soo ku gubo dadka uu ku gafay hablaha hablaha ciidagala weyne uu ku gafay inuu hor yimaado anagu mid hor imaamka odhan mayno laakiin haweenweynaha ciidagala uu ku qasbayey inuu hor yimaado uu yidhaahdo waan khaldamay anigaa khaldamay xiqdi iyo xumaan aniga igu jirtay baa igu kaliftay ha layga raali noqdo degdeg baan u sugaynaa dowladdana waxaanu ka codsanaynaa oonu leenahay kaasoo kale wuxuu dadka wuxuu sameeyo mooyaane iyo kala fogaynu dadka sii kala fogeeyo mooyaane somalilan oo wada joogaysaa ma jirto maalin walba wax kale oo dad cabanayo kale waa la arki doonaa laakiin gaar ahaan imika cabashadani maaha cid gaara oo dee taabanaysa dad gaara laakiin waa hooyooyin waa sodoho waa hablahoodoo kale waxaan uu ku qoray afar buuggiisa oo uu ku macneeyey cay aan gabasho lahayn degdeg baan u sugaynaa haddaanu nahay haweenweynaha ciidagale jawaabta degdegaan sugaynaana waa wasiirkoo xilka laga qaado buwaagtuu gacantiisa ku gubo dadkii uu ku gafo hor yimaado yidhaahdo waan gafay wasalaamu calaykum waraxmatullahi in la yidhaahdo guri balaayo oo inaga dee buugi lagu qoray horta taariikh qablaha ciidagale hore ayna u lahayn maanta loo samayn maayo isaga marka hore qodob baan leeyahay waxaan leeyahay haddii aanad ka jawaabin ama aanad dib uga hadlin oo aanad raaligelin ama xaal ka bixin qofku way meel u qaldami karaa horta lagu barto islahaa buuggan hablaha ciidagale markuu ku qorayay sababta ay tahay buuggiisu hadduu socon waayo cayda hablaha ciidagale inuu kumu iibsanahay midkaas waxaan farayaa madaxweynaha somalilan waxaan u sheegayaa ninkan waxaad ka dhigatay wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka qofka dhaqanka loo dirtaa waa inuu noqdaa qof isagu ku dhaqmaa oo ah umaadkiisa raacin wuxuu ka soo jeedo iyo siduu yahay iyo buugga uu hablaha ku caayay intaba umaad miiriyo mudana madaxweyne waxaan kuu sheegayaa hablaha daawud ismaaciil ee caayay waa hablaha hooyada cadar ay ka soo jeedo waxaan kuu sheegayaa ma malayna inay arrinkan cunsuriyadu ku jirtaan malaynay sababtoo ah buugga taariikhda waxaa la qoray waqti horena inankii soo saaray buuggan weli cid ka hadasho inankaa beeshoodii ma jirto weli madaxweyne ka hadlay ama idin ka dood ama xaal ka bixina maynaan arag soo gabagabaynayaan leeyahay guri balaayo waa inoo bilaabantay gurigaa dabadii waan la fadhiyi doonaa ama waad isdhiibi oo buugaagtaad gubi oo xaal baad bixi oo xilkaad ka digi ama suba wallaahi inagoo dhangad sidan ama beentayba hooraaye la yidhaahdo iyo cumar ciidina jibaax ayaa BBC-da berigii la yidhi keebaa cayda badiya dabadeeta markuu dhameeyey mid waliba caydiisii waday ayuu hooraaye yidhi waxba yahay dee horta ninkan waa waxba yahay oo wax u hadhay ma jiraan waxaan se idiin sheegayaa
أنا قبيضة ما أقانو لكن إلا استدح بين فرهبين وان ير حوصلوا مدحي حنوني وحبان يريري بليغا يرى وحان يرتقنوا مداعو كي مردو ديدو ما موسلعانو كي مقعوايو مكلالغونو واحد دوشو واحد دلالك آدو تعسيا رادو تو وحبا يبعتي محان كالا هدلا وسير بالي يري نقو لما أورن حاول إذا فلنقه وحكا شيك هابلو ميلوال أوي جوغان با شرف بمدينين كوا أصاب مدن كوا نا مدن مقع الصوماليين أمبا إسلام كهبلا إسلامي مدوالي با كرامة يشرف بمدن تاي عيمالا هابلو عيمالاها وحالو ديري تيوحالي الوسير نقو كرسيكون كفريسو لما أورن حاول إذا كشاقيه تستانينا مدحوينات سومالي لان ننكا هدان نلوكينين أنا قررك يجو وما قلما أنا قاعد تمر كي أنا أقول يطور دنكت بنك كسر ياكو فديو قبلها عيد قالوا هذا جبي جود هديت إبوي يعني يلا مهلانكا وهرمود كده الكيا هورين ترير شيخ هل جن كي مال بي كليهن لما هالمامان هرمر كده الكي تعلي هات تندبدي هل يجي ذي دلين بعدين هرمر كودي هو يقعد يستان باللجوها جاجا إيه هل كانت كلا قاعدة برا هات تنقرني قانين هبلا عيدا قال هالكن على إيه قدود بوي مادي وحنا قبنين بنا لجو سمي وحنا لا هاي قبل أن تلا الدنيا أقولي برواقع وأقولي عبارة إلهي علامها كل ذنك عيبته إن بواقع تكوكري إنه قلت لك علي إن عرورته يري عيبته إن إنك كوها تأخذوا النعاية وقري نلا يلاحظوا أحمد عوالة أو بروفيسور ninkaasi wuxuu qoray buuga waqtigan isla waqti u dhow u guri sareeya qoray buuga marka buuga uu qoray ninkaasi waxa uu ku sheegay qolo la yiraahdo Jibriil Abokorka ayuu ku sheegay iyo qolo kale ayuu Isxaaqan malanaya inay ahayd ayaa wuxuu ku sheegay in uu yahay nin muxuu ahaa in buuga inay yihiin inay Oromo ka soo jeedaan buugaas markii la qoray amba sheekhaal ay la galaan buuga markii la arkay waxa ninkaasi xaaf magaalada waxa la leeyahay wixii Jibriil Abukar deganaa weerar bay ku qaadeen buugii ninkii wuxuu ku xidhnaa CID-da 3 cisho ayuu ku xidhnaa CID-da markii lagu xidhayna waxa lagu xukumay inuu waxa la leeyahay waxa buug baxay intuu soo ururiyo uu dab qabadsiiyo waxa aflagaadada kaliyaata lagu haystayna waa reer uu yiri waxay ka soo jeedaan muxuu ahaayay sheekhaal haddaba maanta ninka guri sareeye wuxuu sheegay dumarka ciida gale ayaa uu ka hadlay waxaynu ognahay dumarka ciida gale ee uu ka hadlay inay madaxweynaha hooyadii suuban ku jirto laakiin wuxuu ku helay darajo ayuu ku helay iyo xil ayuu ku helay sidaan filayo waayo madaxweynuhu dama buuga la 2012 kii la qoray ee intaasoo dhan joogay waxaan u maleynayaa inuu og yahay marka waxa weeyaan ninkaasi orta uma qalmo inuu wasaaradda warfaafinta wacyigelinta uu haysto umana qalmo inuu dalka soo hol fadhiisto oo uu noqdo qof xil guri sareeye aniga cashuurtayda ayuu ku fadhiyaa meesha waayo dumarka Somaliland gabigoodu way ka siman yihiin maanta aniga hadduu caayo beritoolana tuu dhalu caayaya 10 hablood buu leeyahay waxa weeyaan markaa haddii uu madaxweynuhu uu waxba ka qaban waayo waxaan u sheegayaa guri sareeye in ay imika bilaabmatay ciyaarta isaga bilaabay annaguna waanu dhamaynaynaa waxa kale oo u sheegayaa Somaliland in ay dumarku nabadgelyadana dhaliyaan dagaalkana dhaliyaan waxa jirta waxaan la yaabi jiray taariikhii hore ee gabayada la isu tirin jiray baa waxaan moodi jiray guri barwaaqo iyo aabihii laga gardarnaa laakiin maanta aan ogaaday gabayadii taariikhii hore in ay ku banaan yihiin gabay baa waxa jira oo la yiri gabay baa wuxuu ahaa nin magaalaha heetiyo mara ku hayruufa oo macawusu shaal u dhigay macawusu hoos u dhigay shaal ku hamagsiya hargeysana markuu qaadka cuno faraska haaseeya haddana aan la hadhin maalintii heega laga qaaday habka shiishka loo ridiyo nimaan banan harnaankiisa marka waxaan leeyahay waxa inay taariikhdaasi maanta isaga iyo aabihii ku salaysnayd maanta baan ogaaday
gobaatiin gobgobodashaatiin gaari korsiyo geed mudalabaatiin laan gebi ku taalo gudini taaban baatiin gidigin guriya baar bilmagayda sharaf badan aan la gaarin baatiin haddaba waxa mushkilada ninka maanta gabayga noocaas imika haddii wax xun lama sheegsheego lamana qaado ee 45 sano ka hor jiray ee gabadheega ahaa ninka intuu buug taariikh sooyaala qoray oo ugu magac bixiyeen cabdilla xasan haddana gabaygaas soo dhexgeliyey ee bogga ku qoray 49 ku qoray waxa uu u jeedaa waa waxaan la garanay laakiin ma dhegaysanayno annagu colaadna isku qaadi mayno isna dili mayno isna caabayn mayno wallaahi adigaan kula daatagayna ninkaa madaxweynuhu xilka ka qaada ummadda uma hayn kara ninka noocaas xilka waa inaad mudane madaxweyne xilka ka qaadaa marka xigta waa in ninkaasi buuggiisu qoray meel kastaba intuu isqarqareeyo soo ururiyo oo ummadda horteeda ku gudo hawsha qaranka u haya ninkaasi ma geeyo mana laguma aamini maayo saacadda annaga nooma aha mudane madaxweyne hooyadaa buu caayay hablaha deeganan baa ku dhashay hablaha nacaaya cidagalaha soo muuse ka maydhalay inan cidagali hooyadaa baa nacaayay madaxweyne hooyadaa baa buugga sooyaalkaa lagu qoray ayayda ayaa lagu qoray kuwaan noo dhaxay marwooyinkaabaa lagu qoray habaryaraha ayaa lagu qoray waa mid dhammaan ummadda soomaaliyeed aanay geyn waxaan leeyahay madaxweyne shaksi gafa haddii la qabto cudurku wuu baxaya ninkaasi wuu gafay haddaad wax ka qabato cudurku wuu bixi doona haddaadan waxba ka qabanna annagaa gacanteeda wax kaga qaban doona asalaamu calaykum